anigu shakhsiyan waxaan ahay si gaara marka guddoominimada laga tago haddana waxaan ka tirsanahay bahda saxaafadda. Saxaafadda waa qaraabo dhowaan sida dhownahay dadka kale. Dhowrkan ayaan rabaa dardaarana oo si odatinimo ah inaan u dardaarmo. Aan rabo saxafiyiinta muhiim aha dhalinyaro badan ay joogto kuwa kalena waa imaanaya laakiin kuwa joogtaan dhegahooda kusii shubaya si ay kuwa kale u gaarsiiyaan. Midda kale Soomaalidu waxay tiraahdaa war helaa tala hela. sababta saxaafadda loogu baahan yahay war helaa tala hela. haddaadan war helin oodan wax iyo warcaal wax yani war iyo wacaal hayn waxaad ogtaaba male. marka baahi xoog leh loo qabaa in wax la ogaado. sababta saxaafadda loo abuuray oo saxaafaddu u abuurantay oo saxaafadda loo sameeyey waa in dadku u baahan yihiin si ay u tashadaan inay war helaan. laakiin warka aad helayso waa noocma. warka aad helayso waa nooc. warka aad helayso waxaa la yidhaahdaa biyo nadiifa iyo war nadiif. annaga waa mahmaha annaga aan curinay oo iska curisa. markaan rabno inaan dhalinyarada tababarno ka waran biyaha adiga aad cabayso haddaysan nadiif ahayn ka warraba. ka waran war aan nadiif ahayn hadduu adiga ku galo marka. meesha la leeyahay saxaafad xor ah oo mas-uula waxay ka imaanaysaa xornimadii baahida loo qabo waa in xaqiiqadii iyo dhabtii la ogaado. mas-uulna war nadiifa oo mas-uuliyad iyo maslaxad ku salaysan. waa inaa adiga qofka saxafiga ah mas-uuliyadda saaran, dhakhtarka mas-uuliyadda saaran, macallinkana mas-uuliyadda saaran, qof kasta oo xirfadla ah oo bashar oo adduunyada dusheeda ku nool mas-uuliyadda saaran. mas-uuliyaddaada marka waxaa lagaa rabaa qaybta adig kaaga soo aadan mujtamaca war nadiifa oo mas-uuliyad ku dheehan tahay oo xaqiiqada ka hadlaaya oo maslaxadooda ku salaysan inaa ka waxaan rabaa inaan ku daro yacni waayo adiga lagu leeyahay waa inaad mas-uul ahaa. waxaa loola jeeda waxa waaye adiga roolaad leedahay ama kaalinaad leedahay ama dooraad leedahay xirfad ahaan. macallinka baraha arday isagu kusoo diyaariya marka guriga hooyadaa ku dhashada iskuulka lagu geynayo qalin warqad sida wax loogu qoro ma aqoon. ma fahamta? qalin warqad sida wax loogu qoro ma ogon. macallinaa kusoo diyaariya. adigana waxaad diyaarinaysaa mujtamac dhan ayaad waxaad siinaysaa war ay ku tala qaataan. marka la leeyahay gacmo wada jiray wax ku gooyaan. marka laysu geeyo ninka koronto yaqaanka ah, ninka dhakhtarka ah, ninka saxafiga ah iyo kuwa kaloo dhan xirfadlayaasha dhan marka laysu geeyo dhammaanteen mujtamac ahaan waxaan ku goosanaynaa nolosheena inaan horumariyo. aniga tusaale ahaan qofka marka saxaafad laga hadlaayo waxaa u soo baxa oo ugu horreeya u soo baxa waa war. laakiin qofka saxafigaa marka la tababaro waxaa muhiim u ah laba shay inay usoo baxo. welibana kala horumarintoodu waa muhiim. waxaa inay usoo baxda ay tahay sharci ma faham iyo aqoon. saxaafad markaad maqasho hadday kuu soo baxdo war ma xadidnid waxa aad qabanaysa ama risaalada aad gudanayso ma xadidnid. laakiin qofka saxafiga waxaa laga rabaa sharci iyo aqoon. yacni shuruucda saxaafadda lagu shaqeeyo oo ay tahay in lagu shaqeeyo inaad taqaano ilaalisan. haddaadan haysan aqoontii aad ku gudbi lahayd fariinta aa wadana dhibkeeda leedahay iyo inaad baratid fariinta aad gudbinayso sida ugu habboon ee aad u gudbin lahayd. fariintaanu ma dhammaystiran tahay? asal ahaan in la gudbiyo sax miya? haddii aad gudbiso maxaa ka faa'iidaysa? maxay mujtamacu ka faa'iidaya? qofka ku dhegaysanaya ama ku daawanaya muxuu fariinta adiga aad gudbinaysa ka faa'iidaya?
inta aadan qof u gudbin waa in horta su'aalahaas adiga isaga jawaabtay adoo ku qanacsan annaga yani saxaafadda qaybta waxaan ahayn wax la yidhaahdo press media ama maaragtay saxaafadda wax qorta maqaalka markaan qorno shardiga koowaad waxaa nala dhihi jiray aduu akhri haddaad dareento maqaalkan wax la akhri karo inuu yahay markaas ka bacdi inta toostoosida gudbi hadduu adiga imtixaanka adiga naftaada aasaarta uu ka gudbi waayo ha gudbin markaan waxaan rabaa inaad ku fikirtaan markaad saxaafad ka shaqaynaysaan waa sharci oo ah sharciga saxaafadda iyo sharciga dalka iyo sharciga environmentiga ama cimilada aad ku nooshihiin inaad ilaalisaan oo waxa la wixii dhiba oo ay sharciga waddankaas ummaddaas u dhibaysa inaad ka celisa iyo aqoon oo ah sidii aad u gudba lahayd oo mihnadaada ama xirfadaada gudba lahayd akhiiran aniga dhowrkaas kelmadoodaan rabay inaan sheego waa ogahay dad kalena inay rabaan inay hadlaan waa ogahay in shaqooyin kale jiraan waqtiguna aad u yaryahay mar kale odatinimo ahaan aniga waxaan qabaa saxaafadda in la fahmo inay tahay xirfadaha ugu muhiimsan mujtamaca hadda weliba hadda casriga ah saxaafaddu waa shay muhiim ah mas-uuliyaddeeda haddii la fahmi waayona dhibaatadooda leedahay war yar oo aad maanta gudbisay waxaa laga yaabaa inuu dad inta isku diro dhibaatadoodii ay socoto muddo aada u dheer yani haddii aadan yani wacyigaagu uusan gaarsiisnayn wax dhibaalaad u geysan kartaa ma aha inaad qada inta soo doonato mushaar inaad ka hesho meeshaan kaliya ay tahay yani waxa shaqada aad qabanaysa dhib ayuu mujtamac u geysan karaa marnaba haddaysan garaadkiina gaarin dhibkeeda leeda ama hadduusan garaadkiinu gaarin waxaan aad gudbinayso dad ayaad ku dhisaysaa ku horumarinaysaa oo si ay talo fiican iyo tashi fiican u gaaraan ayaad ku horumarinaysaa haddausan garaadkiinu gaarin dhibkeeda leeda marka waxaan idinka codsanayaa dhalinyaro inaad dadaashaan waa idiin hambalyaynayaa hay-adaha xafladaan noo soo qabanqaabinaya waa u hambalyaynayaa annagu mar kasta ducadeenna iyo taageeradeena waa idinla garab taagan yani ducadeenna iyo taageeradeena waa idinla garab taagannahay laakiin waxaan codsanaynaa inaad noqotaan dad oo mas-uuliyaddooda sida ugu saxsan u gudanaya ilaahayna hana waafajiyo waa mahadsantiisa